halkani waa Kasmo Hospital, xarunta daaweynta iyo ka hortagga cudurrada. Waxaan kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan, fadlan like saar page-keena, sidoo kale ku soo dhawow channel-keena YouTube-ka. Mahadsanid. Maanta waxaan qaadaa dhigi doonaa faa'iidooyinka ay leedahay salaada. Kama hadli doono faa'iidooyinka guud ahaan, balse waxaan ka hadli doonaa dhanka caafimaadka faa'iidooyinka ay u leedahay. Marka koowaad, waxaan wada ognahay in salaadu ay tahay tiir ka mid tiirasha Islaamka, waana waajib diini ah oo waajib ku ah qof walba oo muslim ah. Lagana doonayo qof walba inuu ogo sidii loo faray, looguna soo dejiyay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Midaasi ma ahan mid aan ka hadli doono. Waxaan qaadaa dhigi doonaa, waan xoog saari doonaa dhanka caafimaadka iyo faa'iidooyinka ay leedahay salaada. عيار الصلاة caafimaadka maskaxda ama mental health. Salaadu waxay saameyn weyn ku leedahay caafimaadka maskaxda, sida ay cadeysay baaritaano iyo cilmi baarisyo kala duwan oo lagu sameeyay salaada. Waxa ay xaqiijiyeen in salaadu ay leedahay xasilooni maskaxeed, ay door kale oo muhiim ku leedahay badqabka iyo yoobida maskaxda. Waxay ka qayb qaadataa xasilinta neerfaha iyo xasiloonida maskaxda, maadaama maskaxda ay tahay rugta ugu weyn ee ka shaqeysiisa jirka oo idil. Waxay kor u qaadaa shaqooyinkeeda la xiriiro habsami u socodka jirka iyo dhammaan fikrada saaritaankooda. Daba dukashada salaadaha waxay kor u qaadaa ay siyaadisaa maskaxda qofka bini'aadamka, waxayna kor u qaadaa shaqada maskaxda ay leedahay. Sidoo kale waxay faa'iidooyin gaar ah u leedahay dhaqdhaqaaqa iyo shaqooyinka neerfaha, kuwaas oo aan ka maarmin maalin walba iyo waqti walba. عيار الصلاة faa'iidooyinka caafimaadka ay leedahay salaadu waxaa ka mid ah labadan qodob oo soo hoosgali doonto caafimaadka maskaxda. qodobka koowaad oo muhiimka ah oo la xiriiro caafimaadka maskaxda wuxuu noqon doonaa salaada waxa ay dejisaa ama ay xasilisaa neerfaha maskaxda. sidoo kale salaada waxa ay yareysaa oo ay dejisaa stresska. sidoo kale salaada waxa ay kor u qaadaa wacyiga. salaadu waxay fududeysaa xifdiga quraanka ama maadooyinka kale. salaadu waxa ay siyaadisaa IQ, waxay kordhisaa aqliga qofka bini'aadamka. salaadu waxa ay kordhisaa aragga. sidoo kale salaadu waxay wanaajisaa maqalka qofka. si aad ugu faa'iideysato qodobada aan soo sheegnay, fadlan ku dadaal salaad oo ilaali waqtigeeda. عيار الصلاة